Assalaamu calaykum asxaabtayda waan islaamay dhammaantiin meel kasta aad dunida dacaladeeda ku joogtaan waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin walaalaha igu xiran maasha Allah soo dhawaada ayaan leeyahay maanta waxaan noo wadaa qiso cajiib ah oo qalbiga taabanaysa waaye walaalayaal asxaabtayda igu xiran waxaan leeyahay qisadani dhageysta wixii oo maxaa la dhihi jiray oo fikradna dhinaca comment-gana nooga soo qor insha Allah inaad ka heli doontaan ayaa rajeynayaa. Qisadan waxay ka dhacday dalka Netherland ama Holland siduu u yaqaano qof walbaba. Wiil yar oo 11 jir ah iyo aabihiis oo iimaan ahaa iyo wiilka yarka oo 11 jir aabihiisna iimaan ayuu masjid ka ahaa. Aabihiis masjid ayuu iimaam ka ahaa jimco kasta waxay qaban jireen guri ayay u geyn jireen buugag oo ka turjumaysa wadada jannada buugag oo ku qoran wadada jannada buugagta oo ka hadlayaan diinta islaamka la oran jiray wadada jannada. Jimco ka mid jimcooyinkii ayaa jawiga aad u xumaa da'ayay roob xun iyo qabow aad u daran. Wiilkii yaraa ayaa aabihiis u yimid wuxuuna ku yiri aabbo maanta ma baxayna miyaa maanta jimco waaye maanta ma baxayna miyaa aabbo ma qaybinayna miyaa buugagtii oo ku qornayd oo wadada jannada. Aabihii ayaa ku yiri wiilkaygiiyow maanta jawiga ma wanaagsana mana bixi kari qabow aad u socdana wuu jiraa roobna wuu da'ahayaa. Taasuu ku dhahay aabihii aabbo jimcada dambe nooga dhig. Wiilkii yaraa ayaa dhahay asagoo ay ka go'an tahay inuu baxo rabo buugagta soo qaybiyo. Markaasuu dhahay wiilkii yaraa aabbo ma ogtahay markaas ayuu dhahay aabbo ma ogtahay dad inay jiraan oo wili wadada naarta oo ku socdaan nooga baahan buugagta in aan soo gaarsiino. Aabihii wuu fasaxay wiilka inuu soo qaybiyo buugagta. Wiilkii yaraa wuxuu xirtay dhar oo qabowga aad u celinaya oo roobkana ka celinaya. Wiilkii yaraa wuxuu bilaabay qof walba oo ka hor imaado oo ka soo horbaxa inuu kutubada u bixiyo uu siiyo. Siduu kutubada uga qaybinayay ayaa hal ka mid ah soo heray ciduu siiyana wuu waayay. Suu u socday muxuu tagay guri. Marka hore wadada suu u socday dad wuu ka waayay marmarka qaarna hal qof ka soo baxay suu u qaybinayay hal ayaa u soo heray. Marka dambe wuxuu isku dayay inuu guri u tago albaab suu u qaraacay marka dambe laga furay waxa ka soo baxday haweeney hanaaqsan oo maxaa la dhihi jiray oo indhahana kuduud haysa. Markaas ayuu irid ay ka furtay markaas ayay ku tiri haweeneyda albaabka ka furtay wiilkii yaraa wiilkaygiiyow maxaan kuu qabtaa. Markaas ayuu ku yiri wiilka maam iga raali noqo waan ku dhibay oon kaa xanaajiyay iga raali noqo ayuu dhahay wiilkii yaraa. Wiilkii yaraa wuxuu ku yiri maam waxaan ku wadaa kitaab oo ka hadlayo wadada jannada soo alla uu ku jeclaado ilaahina wili wuu ku jecel yahay ayuu ku yiri wiilkii yaraa. Iga gadoon kitaabka. Haweeneydii ayaa kitaabka sidaa ku qaadatay. Kitaabkii ugu dambeeyay ayay saas ku qaadatay haweeneydii. Marka laga joogo hal isbuuc oo la gaaray jimcihii masjidkii oo maxaa la dhihi jiray oo khudbada ka socotay jimcada ayaa haweeneydii ayaa imaamkii yiri su'aal qabo dadka dhan maya ayay dhaheen. Markaas ayaa haweeneydii gacanta taagatay aniga ayaa su'aal qabay ayay tiri. Dadkii dhan baa wada aamusay. Haweeneydii safka dambe ayay ku jirtay way ka soo kacday waxayna ku tiri ani jimcadana igu horreysay aan imaado khudbada waa jimcadii igu horreysay horaana waxaa ahaa gaal haddana waa markii igu horreysay aan ka soo qayb galay jimcada. Waxay tiri jimcadii hore aniga iyo ninkeyga ayaa iga dhintay waxaana ahaa gaal jimcadana waxaan go'aansaday in aan nafteyda aan daldalo mise aan xarig ku xiro saa adduunka aan isu dhaafiyo. Markaas ayay dhahay anigoo xarig isku xirayo go'aansaday in aan isdilo ayaa albaabka igu soo qarqaraacay. Marka hore waxaan damcay in aan furin marka dambena waxaan go'aansaday in aan ka furo. Wiilkii yaraa albaabkii igu soo qaraacay ayaan ka soo furay. Markaas wajigiisa waxa iiga muuqday nuur iyo iftiin iyo farxad. Wiilkii yaraa wuxuu ugu yiri wiilkii yaraa eriyo oo hadalkiisa wanaagsan oo qalbigayga taabtay. Hadal fiican ayuu igu dhahay oo qalbigayga taabtay.
maam weli alla wuu ku jecel yahay ayuu idhahay. Halkaas eri ayaaba waxaa u dhigay aan garan waayay. Wuxuuna i siiyey wiilkii yaraa kitaab yar oo aad u qurux badan. Kitaabkii yaraa markaan akhriyay waxaan go'aansaday in aan weli noolaado oo diinta islaamkana aan ku soo biiro. Sababtoo ah waa diin oo naxariis ah. Alxamdulillaah ayay tiri. Subxaanallah. Qof walba oo masjidka joogay oo jamaacada joogay ayaa hal mar wada subxaanallaysteen oo yaabeen oo ooyeen. Dadkii dhan oo meesha joogay ayaa hal mar ku wada dhawaaqay Allaahu Akbar oo 3 mar ah. Allaahu Akbar ayay dhaheen. Allaahu Akbar. Imaamkii ayaa ilmeeyay oo ilinta ka qulqulaysay. Markaas ayuu wiilkiisa soo ag fadhiistay. Wiilkiisa ayuu haddana u mahadceliyay. Maasha Allah. Asxaabtayda igu xiran waxaan leeyahay sii share gareeya asxaabtiina la wadaag si qisadan iyukana ay u dhageystaan ay ugu faa'iidaan oo asxaabtooda kale iyukana ay la sii wadaagaan. Insha Allah waxaan rajeynayaa in si fiican ay fahanteen. Maasha Allah waa qiso cajiib oo qalbiga taabanaysa oo cibro qaadasho ah. Ilaahay ku diintooda ku dhinta Allah naga dhigo. Ilaahay ku oo soonkooda salaadoodana laga aqbalo Allah naga dhigo. Insha Allah biidhnillaahi kariim waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin meel kasta dunida ka joogtaan. Saa mar kasta ay daawataan waan iiga mahadcelinayaa. Like-ta noo muhiim. Hadaa horaan ila joogi jirtin soo dhawow. Hadaa igu cusub tahay ayadana soo dhawow. Subscribe noo saar. Like-tana hanaga baqiilin. biidhnillah asxaabtiina la sii share gareey insha Allah. Waxaan leeyahay sidaas iyo fi amaanillah.